munaasabad ay ku qalin jabinayeen in ka badan 160 arday oo ka baxday dufcadii 11aad ee jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay maayirka degmada Laascaanood maamulka jaamacadda Nugaal Cuqaal iyo waxgarad ugu horeeyay Caaqil Axmed Hoolif iyo marti sharaf aad u tiro badan waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta jaamacadda Nugaal oo ka warbixiyay marxaladii ay soo martay jaamacadda iyo ardaydii ka qalin jabinaysay ayaan mahadinaya jaamacadani waa jaamacaddii gobolka weyn jaamacaddii ummadda weeyaan dad da'yar baa ka qalin jabisay dad da'yar baa macallimiinka kamid aha markay inoo hana qaaday oo ay meel dhex maraysay masaajidkeena jaamica dadkii dhagax dhigay oo odayaasha ahaa maanta cid kama noola jaamacaddan dadkii magaca bixiyay iyo kuwa iyaga imika jooga oo idinla hadlaya waxa soo dhow waqti aan noolaan doonin masjid jaamica oo 100 sano iyo in la eeg jira maanta waxa ku tukada aniga iyo inta la midka ah oo intifaacaya jaamacaddan iyo deegaankan waxaynu u diyaarinaynaa dadka soo socda 20 sano 10 sano 100 sano iyo qarni iyo inta adduunku uu jiri doono dadkeena maanta waxa aynu beerno sida loogu beeray masjid jaamica ardayda oo hambalyeynaa dadaalkii faraha badnaa iyo waqtiga ay soo galiyeen waxbarashada ilaahayna waxaan uga baryaynaa intaasi kadib waxa hadalka isku doomaray ka soo qayb galayaashii munaasabada qalin jabinta maqalin bedelanaysa ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu cilmigooda ka dhigo cilmi lagu intifaaco oo dalka iyo diinta iyo wadamada islaamka oo dhan kuwii wax tara runtii ardayda ka qalin jabisay jaamacadda ee soo dadaashay ee maanta dhamaysatay heerkii koowaad ee jaamacadda bogaadinta koowaad ardaydaasaan siinayaa bogaadinta labaadna waxaan siinayaa guddoonka iyo macallimiinta iyo maamulka jaamacadda ee heerkan soo gaarsiiyey ardaydan iyo kuwii horeba maanta waxaa raadkeedii muuqataa oo ka dhisan waan ugu mahad celinayaa jaamacadda waxa weeye wasaaraddii tacliinta soo dhawaada iyo ardayga yahay qofku marka uu ugu hiilka badan yahay waa markuu wax baranayo oo yaa u hiilinaya xaq ilaahay baa kala jira oo xaq waalidkii baa ka wada xaq macallinkii baa ka wada xaq dawladdii baa ka wada insha Allah waa mahad celinaynaa waxaan kaloo u hambalyeynaa ardayda qalin jabinaysa dhamaanteed wiilal iyo gabdho waxaan leenahay hambaliyo runtii waa xilli wanaagsan waa waqti aad goyseen iyo shawt wali laakiin jaranjarooyin kala harsan insha Allah ta'ala u baahan soo dhawaada ma fiicantihiin wa kulankiina waan ki faraxsanahay أنا سعيد جدا أن أكون بينكم من أرض السودان إلى أرض الصومال وأشكر جامعة نقال على هذه الاستضافة وأحييكم من المنصة ugu dambeyntii maayirka degmada Laascaanood ayaa munaasabada soo afmeeray waxaana hadalkiisa ka mid ahaa waxaan kaloo mahadnaqayaa guddigii qabanqaabada ee xafladda soo qabanqaabiyey ee gudoomiyaha u yahay Barasforistasa iyana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin saxaafadda dhammaan tiinkii hawsha soo qabtoo dhan iyo madaxda jaamacaddana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa inaynu horumar gaadhno ugu dambeyntii waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyay arday ka qalin jabinaysa kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Farxaan Maxamed Caydiid Somali Cable TV magaalada Laascaanood